السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دواد وركا تيفيga Somali Channel Studio magaalada Nairobi ayuu idinkaga imaanaya. Aniguna waa Saacadiye Garabay qodobada wararka daawan doontaan waxa kamid ah xukuumadda federaalka Soomaaliya sheegtay inay gudi u saareyso sii deynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalalka dibadda. gudoomiyaha gudiga maamul dhisidda baarlamaanka Soomaaliya waxa uu dhaliilay qaabka dawladda federaalka Soomaaliya u mareyso shirka dib u heshiisiinta ee gobolada Jubbooyinka. banaanbax dawladda Belgium looga dalbanayo inay ku sii deyso madaxweynihii hore ee maamulka Ximin iyo Xeeb iyo Maxamed Cabdi Afweyne ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanada ay ka taliso maamulkaasi Ximin iyo Xeeb. wasaaradda caafimaadka Puntland iyo hadda NCI ayaa magaalada Garowe ugu qeybiyay deeq raashin ah ilaa 140 qoys oo isugu jira dad barakacayaal ah iyo waliba dad danyar ah. maayarka degmada Barbarana Cabdishakuur Maxamed Xuseen ayaa maanta qalab isboorti waxa uu ka gudoomay dhalinyaro qurbo joog ah horeer Barbara ah. magaalada Nairobi waxa lagu soo gabagabeeyay seminar markaas dhalinyaro loogu barayay luqadda Carabiga iyo kutubta diiniga ah. inta daawadayaal qodobada wararka iyaga ugu door karoon iyagoo faahfaahsan iyo kuwa kale waxa daawan doontaan goor bal saatan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada ah. xukuumadda federaalka Soomaaliya sheegtay in ay gudi u saareyso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalalka dibadda sida faahinta warkaan magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto halka Somali Channel uga soo warama. afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiwali Shirjirayd oo qabtay waxa uu kaga warbixiyay kulanka golaha wasiirada uu sheegay in ugu horeyn looga hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan horumar uu sheegay in laga gaaray dhanka ammaanka. xaaladda amniga dalka Soomaaliya aad iyo aad ay u wanaagsaneyd toddobaadkii la soo dhaafay si weyn ayay isugu hawleen guud ahaan wasaaradaha ay khusayso in amniga ay wax ka qabtaan maadaama maalmo muhiim ah lagu jiray oo dadku ay u dabaaldegayeen ciidda ama munaasabadda Ciidul Adha. waxaa jiray guddi heer qaran ah oo loo saaray inay sugaan ama ay hubiyaan amniga dalka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. guddigaasna waxyaabo lagu ammaani karaa ay qabteen runtii maalmihii la soo dhaafay iyo maanta oo wali dadku ay u dabaaldegayaan ciidda. afayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay gudi u saari doonto sii deynta maxaabiista ku xirxiran qaar ka mid ah xabsiyada wadamada caalamka. waxaa kaloo iyana ay golaha wasiiradu aad iyo aad uga hadleen sidii loo sii deyn lahaa in badan oo ka mid ah maxaabiist Soomaaliyeed oo ku sugan xerooyin ku yaala dalalka India, Seychelles, Libya, Ethiopia, Kenya, Yemen iyo dabcan sidii xuquuqda ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed maxaabiista sidii loo sii deyn lahaa. waxaana jira waxyaabo fara badan oo horumar ah oo laga gaaray in qaar ka mid ah maxaabiistaas la sii daayo. waxaa kaloo iyana jirta in guddi gaar ah wasaaradda arrimaha dibadda ay u sameyn doonto sidii xuquuqda iyo maxaabiista dadka Soomaaliyeed intaba markasta indhaha loogu hayn lahaa. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gudiga maamul dhisidda baarlamaanka Soomaaliya waxa uu dhaliilay qaabka dawladda federaalka Soomaaliya ay u mareyso shirka dib u heshiisiinta ee gobolada Jubbooyinka ee lagu wado dhawaan inuu qabsoomo sida faahinta warkaan ee magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Nimco Maxamed Bashiir oo Somali Channel halka uga soo waranta. xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah gudoomiyaha gudiga maamul dhisidda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wareysi u siiyay TV-ga Somali Channel waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee gobolada Jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo oo uu dhawaan ku tagay safar. waxaana xildhibaanka oo ka hadlayay isfaham waaga soo kala dhaxgalay dawladda federaalka iyo maamulka ka arrimiya gobolada Jubbooyinka oo dhaliilay qaabka ay xukuumaddu u mareyso shirka dib u heshiisiinta gobolada Jubbooyinka. runtii waxaan isleeyahay miscommunication ama qaab communication xumo ayaa jirta
dawladda iyo maamulka Jubba heshiis bay soo wada galeen heshiiskaasina wuxuu ka bilowday is-arag iyo wada hadal mas'uuliyiinta dawladda ama heer baarlamaan ha noqoto ama heer maartay dawladda federaalka madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale iyo maamulka Jubba ha noqdo markii dambena Addis Ababa lagu soo saxeexay Addis Ababa agreement-ina barnaamijkiisu barnaamij taxan weeyo oo in markii Addis Ababa lagu saxeexay maamulka Kismaayo ee Jubba ay yimaadaan gobolada Jubbooyinka maamulkiisu inay yimaadaan Muqdisho ka bacdina markaa kadib Kismaayo lagu shiro ayuu barnaamijku ahaa sidaad ogtiin maamulku way yimaadeen mas'uulka ugu sarreeya iyo mas'uuliyiin badan oo la socota way yimaadeen halkan markii ay yimaadeen waxa ay la kulmeen dhammaan qaybihii bulshada iyo siyaasiyiinta iyo cid walba markii dambana waxa weeye xagga la isula noqday shirka labaad runtii dadku waxay aad u daneynayeen in lagu qaban doono magaalada Kismaayo inta aan ka warhayo xukuumaddu waxa ay ku dhawaaqday in shirka lagu qaban doono Xamar haddii dhinac laga eego waxba dhibaato kuma jiraan in Xamar la isugu yimaado lagu shiro ama Kismaayo lagu shiro ama magaalo kale lagu shiro dadka Soomaaliyeed kalsooni baa loo baahan yahay marka waxaan is leeyahay miscommunication baa jira waxaad moodaa in meelaha qaarkood xoogaa degdeg uu ku jiro oo wax la degdegayo laakiin waxaan rabnaa in laga baxo waxyaabaha isriixriixa iyo isdhaliisha iyo waxyaabihii muddooyinkii la soo dhaafay jiray in laga baxo oo la isla jaan qaado xildhibaanka oo sidoo kale aan wax ka weydiinay burbur la sheegay inuu ku yimid heshiiskii magaalada Addis Ababa ku dhexmaray dawladda federaalka iyo maamulka Jubbooyinka ee uu hogaamiyay Axmed Madoobe ayaa ku jawaabay khilaaf oo ka jirana ma jiro wax isbedel oo ka jirana ma jiro haddii cid isku dayday inay wax kale soo dhexgelisana laga yeelayo sababta heshiiskani waa heshiis caalami ah dawladda Soomaaliyeed iyo maamulka Jubba ay kala saxiixdeen wadamada African Union ku waa support gareeyeen European ku waa support gareeyeen dawladda Mareykanka statement bay ka soo saartay shacabka Soomaaliyeed uu taageeray dadweynaha gobolada Jubbooyinka waa darkiisay inay si maartay wada jir ay u taageereen Muqdisho markii la yimid waa ogtahay oo maamulka Jubba markii ay halkan yimaadeen sidii loo soo dhaweeyay iyo sida maartay looga wada qayb qaatay iyo markii ugu dambeysay oo filayay inaad joogteen xafladii lagu qabanayay City Plaza gunaanadka dadka shacabka reer Muqdisho joogay ee Jubbooyinka ka yimid waxay sheegeen in gogashii la laabay Xamar Taaley loona raray maxaa la yiraahdaa Jubbooyinka waxa la filayayna taas ay ahayd haddii loo baahdo in shir la qabtana mar walba waxa loo baahan yahay in la isu hoggaansamo mar walba waxa loo baahan yahay in la isu qabsoomo mar walba waxa loo baahan yahay in compromise uu jiro Cabdirashiid Xidig oo ugu dambeyntii aan weydiinay suurtagalnimada qabsoomida shirka dib u heshiisiinta Jubbooyinka ee xukuumaddu iclaamisay in lagu qabto magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta dawladda in la tashi ay la sameeyso maamulka hay'adaha Jubbooyinka si la isugu waafaqo halka rasmiga ah ee la dhigayo gogasha shirkaasi waxaa loo baahan yahay in laga hadlo waxyaabaha factiska ee xaqiiqda ee jira shakhsiyaadka hadda shirka qaban qaabinaya oo kale qaar badan oo kamid ah maxaan ku idhaahdaa waxa la rabay inay xiriir sameeyaan oo ay la sameeyaan mas'uuliyiinta sarsare committee baa la magacaabay halka laga magacaabay committee-gu waxa la rabay inay la xiriiraan dadka kale ee mas'uuliyiinta maamulka gobolada Jubbooyinka oo ay ka wada hadlaan sidee shirka loo qabanaya ayaa ka soo qayb galaya goorma la qabanaya xagee lagu qabanaya waxa soo dhan inta aan media iyo loo geeynin in horta laga wada hadlo ayuu haboonta aad u mahadsan baaqaygu marka ugu horeysa waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed muslimiinta meel kasta oo joogaan iyo muslimiinta oo dhan ciid wanaagsan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed dawladdiisa iyo maamuladiisa iyo deegaamadiisa intaba ay isu taago ka u diyaar garoobo xilligan adag ee lagu jiro in laga gudbo hal loo istaago in nabadda laga wada shaqeeyo hal loo istaago in dib u heshiisiinta laga wada shaqeeyo hal loo istaago in amniga la sugo waxaan oran lahaa xilli wanaagsan oo caalamku Soomaaliya u soo jeedo ayaa la marayaa gobolada Jubbooyinkana gaar ahaan dadka ku nool waxaan u soo jeedin lahaa inay gacmaha isqabsadaan Nimca Maxamed Bashiir Somali Channel Muqdisho banaanbaxa dawladda Belgium looga codsanayo inay sii dayso madaxweynihii hore ee maamulka Ximin iyo Xeeb iyo Maxamed Cabdi Afweyne oo ku xiran dalkaasi Belgium ayaa waxay ka dhaceen deegaanada ay ka taliso maamulkaasi Ximin iyo Xeeb sida faafinta warkaan magaalada Dhuusamareeb noo soo diray Jamaal Macalin Axmed oo halka Somali Channel uga soo warama
banaanbaxana waa mid si weyn loo soo agaasimay inay soo qabanqaabiyeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada una kala qayb galay maamulka Godinlabe ee Ximan iyo Xeeb ayaa waxa ay ku dalbanayeen in dib xorriyadooda loogu soo celiyo Maxamed Cabdi Xasan Afweyne oo lagu xiray dalkaasi Belgiumka oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa ganacsada Ximan iyo Xeeb iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka Ximan iyo Xeeb Maxamed Cabdilaahi Aadan Tiice dhammaan dadka ka qayb galayay banaanbaxa ayaa ku dhawaaqay ereyo ka dhana gacan ku haynta Maxamed Cabdi Xasan Afweyne iyagoo sheegay inuu gacan weyn ka geystay sidii dhalinyaro badan oo ku dhaqana deegaanka Ximan iyo Xeeb iyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliyaba sidii looga reebi lahay howlaha burcadbadeednimo oo beesha caalamka ay si weyn muddooyinka ugu dambeeyay saameyn ugu yeeshay dhaqdhaqaaqooda dhinaca badda iyo barigaba dadka ayaa dhammaan lugta soo mariyay xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Godinlabe waxaana sidoo kale ay aakhirka isugu yimaadeen fagaaraha Godinlabe iyagoo halkaasi ka soo gudbiyay khudbooyin kala duwan ay ku cabirayeen banaanbaxooda waxa uu ku saabsan yahay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waad maqlayseen adduunyadu way og tahay wixii ka jiray badda waad og tihiin 2 sano wax ma garatay badda wax galay ma leh haddii la kuuriyay nabadgelyo noqotay maraakiibtu saacadda waxay noo martaa oo xeebaha ay u martaa 10 mayl bay u martaa dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dagaal u galo sidii lagu soo doonahay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ah madaxweynaha hore Ximan iyo Xeeb iyo ganacsada Maxamed Cabdi Afweyne in qabkii uu soo bixilay annaga maanta dawladdan haysanaynahay qofka dad gasho waa in wadankeeda iyo hawsheeda loola xisaabtamo marka waan soo dhaweynaa xagga burcadbadeednimada iyo isbaarooyinka iyo nidaam darrada iyo qabaalaysiga labadii nin ee ka keentay inay xalliyaan labadii qof oo ku amniga lahayd weeye ammaanka maanta Soomaaliya dhan ay ku marto dalka Ximan iyo Xeeb oo ay martida ugu tahay ama si ay ku safaraan labadii qof oo ka dambeysay weeye Maxamed Cabdi Xasan iyo Maxamed Cabdilaahi Aadan Tiice madaxweynihii Ximan iyo Xeeb ugu horeeyay nabadgelyada iyo ammaanka iyo ku soo celinta nidaamka asaasiga ah iyo ninka burcadbadeed ay ku nasabidanayaan waxa weeyaan xaliyihii deegaanka Ximan iyo Xeeb burcadbadeed ka xaliyay asagoo ahaa markii horeeto nimankii ka shaqayn jiray mariiniska badda ahaa ka shaqayn jiray goostada ka shaqayn jiray dabadeedna markii sida xil kale iyo sida nidaam darrada ay xadgudubka ay ula dhaqmeen doonaha maraakiibta ee shisheeyuhu ay dhibaatadii ay u geysteen wixii ay ka geysteen maxaa tiraahdaa xaliyay dadka xuquuqaha bini'aadamka u dooda ka codsanaynaa in loo soo celiyo sharaftoodii lana soo daayo oo loo soo celiyo sharafkoodii iyo xorriyaddoodii loo soo celiyo dadka ninka waxqabadkiisu mudan yahay intaasoo khalqiga xareeyey wakhtigii ballanta lala galay ilaa haddeerna aan wax badcabadeeda aan adduunka la arag waxaan ka codsanaynaa madaxweynihii hore iyo muwaadinkaasba inay noo soo daayaan dawladda Belgium waxaa ka soconaya banaanbaxyo xoogan oo u muuqda kuwa si isku mid ah loo soo abaabulay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo qaban qaabinayaan maamulada deegaankuna ay kala qayb galayaan Cabdijamaal Macalin Axmed Somali Channel TV Dusmareb cali xaaji warsame ayaa maanta magaalada Kaalkacyo kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada ee Puntland sida faafinta warkaan magaalada Kaalkacyo nooga soo diray Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cabdi waxaa maanta magaalada Gaalkacyo xarinta gobolka Mudug musharaxnimadiisa uga dhawaaqay maareeyihii hore ee shirkadda Golis Telecom Soomaaliya Cali Xaaji Warsame xafladii Cali Xaaji Warsame uga dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal nabadoono siyaasiyiin qaar ka mid wasiiradii hore ee dawladda Puntland aqoon-yahaniin ururada haweenka dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxayna dhammaantood soo dhaweeyeen musharaxnimada maareeyihii hore ee shirkadda Golis Telecom Soomaaliya Cali Xaaji Warsame waxaana ugu horeyntii xafladaasi ka hadlay musharax Cali Xaaji Warsame maantay oo ay tahay bisha Oktoobar 17 sanadka 2013 oo waafaqsan 12ka bisha barakaysan ee Dhulxijja 1434 waxaan halkan ka cadaynayaa inaan ahay musharaxa madaxtinimada dawladda Puntland ee sanadkan fishankaygu waxa weeye maamulka Puntland in la baahiyo oo laga dajiyo laamiga oo ay gaaraan gobollo fara badan oo ay ka mid tahay gobolka Sanaag oo ka mid yahay gobolka Bari intiisa badan
oo ay cayn iyo sool iyo sanaag ka mid yihiin oo mudug ay ka mid tahay gobollo badan oo maamulkii dowladda aanu gaarin in si rasmiya uu gaaro oo ay ka taliyaan aayaha dowladda ay ka tirsan yihiin aysan noqonin waxa la yidhaahdo xuduudo aan talada loo dhiibinin arrintaasna waxay ka mid tahay waxa aan leeyahay waad qaban kartaa puntland ilaahay wuxuu ku manaystay dhaqaale macquul ah waxa leeyahay soomaaliya dhowr iyo 50 milyan baa ku nool oo xoola ah waxa leeyahay puntland ilaa 15 milyan oo ka mid ah ama 14 milyan oo ka mid ah ayaa laga heli karaa waxay leedahay xeebta ugu dheer Soomaaliya 1400 kilomitir oo raacsan badda cas iyo waliba badda Hindiya waxay leedahay dhulka ugu khayraad badan ummadda Soomaaliyeed ay la wadaagto ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu siiyay meesha Soomaaliya ugu istiraatiijiyan ee isku xirta waqooyiga iyo koonfurta iyo bariga iyo galbeedka inaan uga faa'iideeyo arrintaas oo Puntland ay noqoto meel lagu kalsoonaado in wax la gashan karo dadka maalka gashadaahi waxay rabaan transparency inuu jiro wax walba inay cad yihiin siyaasaddu wadanka lagu dhaqayo inay cad tahay amni inuu jiro dhaqaale dadku inay diyaar u yihiin inay shaqaystaan inaan Puntland resource-ga ay leedahay oo ilaahay badiyay aan u ururiyo oo u xisaabiyo shaqadii aan ka soo shaqaynayay 35 sano la soo dhaafay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay nabadoon Yuusuf Xaaji haddii ilaahay meeshaas adoonaysna nala kula doonayna ku gaarsiiyo rag horena soo maray madaxnimada Puntland waxaa la yidhi wiilashaada adigu ma kala jeclin iyagaa iskaa kala jeclaysiiyeen waana intaasaan kaa idhi hadalkii waxaan kaga baxayaa mar labaad ilaahay waxaan ka baryaynaa jidka mustaqiimka inuu ina ku toosiyo aakhiradeenna iyo adduunkeennan ilaahay inuu hagaajiyo madax wanaagsan ayna hagtana ilaahay wax inuu ku dhiibo oo cali kow ka yahay cabdiraxmaan cabdulaahi cali telefishinka caalamiga iyo Somali Channel gaalkacyo oda dhaqameedyo kulan ku yeeshay magaalada Beledweyne ayaa ka soo horjeestay nabadoon dhawaan halkaasi lagu caleemo saaray sida faahinta warkaan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan inoogu soo diray Cismaan Aadan Careys oo Somali Channel magaalada Beledweyne uga soo warama kulankan ay isugu yimaadeen odayaashii waxgaradka ayaa waxay si weyn uga soo horjeesteen doorasho dhawaantani lagu sameeyay gudaha magaalada Beledweyne ee lagu doortay nabadoon oo matala beeshaasi iyadoo ay sheegeen in arrintaas ay tahay mid aan loo dhamayn in beesha ay iska arkin dadka sameeyay yihiin kooxo markaasi ay kaga soo horjeedaan in aan arrintaas loo dhamayn waa kuwan qaar ka tirsan odayaasha kulanka maanta ku yeeshay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan shirka meesha ka dhacay waxa isugu yimid wax dhuumashaale wax qarsoon midna maahan dadka la degan oo gobolka degan waanu ogyahay maanta meesha ku jirayno waxaan ka shiraynaa aryaamo dhawad qaaqul dhacay oo soo yeeray oo la yiri nabadoon la duubaya kala go'aad warsamay wax baa jira shaqaaqa jirta waxaas ayaa isku kaaya keenay waa waxaan jirin waa waxaan dhicin doonay saxaafadda waxaan u sheegaynaa aadan warsame intuu ka koobnay baahiisii oo dhow u fadhinaa waa midaysanahay waxaan ku midaysanahay tawfiiq waxaan ku midaysanahay nabadoon inuu suuriyo xuseen xayowya 10 sano duubaya nin kale oo bannaanka looga yeeray wuxuu yahay mag yaan la qabanin nooma jirto arrintaas waxaan rabnaa dal iyo dibad inaad gaarsiidaan saxafiyiinta inuu sheegto soo saarto dalka u sheegto maamul gobolka jiro u sheegto dadweynaha Soomaaliyeed la degan u sheegto saxaafadda dibadda la gaarsiiyay alxamdulillah rabbil alamin anigoo ah Salaad Uduwaay Axmed oo aadan warsamo ah shirka halkaan isugu nimid aadan warsame hadal yeeray oo been ah ayaan waxaan isugu nimid inaan beentayno oo caalamka u sheegnaa inay been tahay aadan warsamo waa mid hal nabadoon uu leeyahay waa midaysan yahay waxaan caalamka u sheegaynaa oon u sheegaynaa maamulka mid gobol iyo mid degmo yaan u sheegaynaa oon u sheegaynaa beesha xawaaday inaa aad warsame oo midaysan yahay nabadoon uu yahay suuriye xuseen xayow waa been waxaan beentaynaynaa hadalkii barirood ka yeeray
haddaan la kuudo baar xasan dhiif oo xasan waxaan sheegayaa meeshaan inuu isu yimid maanta aadan warsame 3 dib oo 10 odoo aadan oo wax ka maqan aan la arag ay u yimideen arrintaas war ka dhacay oo walbaarka xasan dhiif oo la yidhi nabadoon aan ku dooranaynaa inaysan xabba ka jirin oo aadan warsame dooran oo aadan warsame u kulmanayn oo ay ahaayeen koox yar ay ahaayeen oo faraarqu wada midkii la doortay 10 sano ka hor oo ahaa Shuuriye Xuseen Xaayow ayaa nabadoon noo ah haddana wixii gaaray ka titirinaha wasaqa arrimahan ayaa ku soo beegmaysa qabsiga la xiriira beelaha nabadoonadooda xilli ay dhawaantani loo diyaar garoobayo doorasho la filay inay ka dhacdo magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan taasoo doorashada beeluhu ay markaasi ku dooranayaan ergooyinkii matali lahaa Ismaan Aadan Carays TV-ga caalamiga Somali Channel wasaaradda caafimaadka ee Puntland iyo hay'adda NCA ayaa magaaladaasi Garowe waxa ay ku qaybiyeen deeq raashin ah iyagoo markaa u qaybiyay qoysas gaaraya ilaa 140 qoys oo isugu jiray kuwa barakacayaal iyo kuwa danyar ah sida faahinta warkaan magaalada Garowe inooga soo diray Maxamed Saciid Yuusuf oo halka Somali Channel uga soo warrama wasaaradda caafimaadka Puntland oo ka shanaysa hay'adda NCA ayaa raashinkan u qaybisay 140 qoys oo danyar iyo barakacayaal isugu jira gaar ahaan haween uur leh iyo caruur yaryar oo nafaqa la'aan hayso munaasabadda raashinkan lagu qaybinayay oo lagu qabtay xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee kaamka Jowle waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda NCA Yuusuf Cabduqaadir Xirsi madaxa hay'adda NCA ee Puntland oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda barnaamijkan iyo waxa loogu talagalay barnaamij loogu talagalay Soomaaliya gaar ahaan dadka hooyooyinka uurka leh iyo ciyaalka yar oo malnutritionka ama nafaqa darradu ay hayso qaybtani waa qaybtii ugu horeysay oo aanu MCH kan aanu hadda ka qabanay kuwa kale oo lamidana waa soo socdaan hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa inay gaari doonto dadkii loogu talagalay waxaan kaloo rajaynayaa hooyooyinka iyo ciyaalka loogu talagalay inuu ay wax tari doonto agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdirasaaq Xirsi Xasan ayaa sharaxaya tirada qoysaska raashinkan ka faa'iideysanaya iyo sida loo soo xulay isagoo hay'adaha caalamiga ugu baaqay inay gargaar u fidiyaan caruurta iyo haweenka nafaqa la'aanta hayso ee Puntland ku sugan dadkan halka u jeeda taagan waa runtii la soo xulay oo screen ama loo sameeyay oo marka la qiimeeyo heerkooda nafaqo ama hooyada ha noqoto ama ilmaha saas la aligeed markii la soo xulay 140 qoys 140 qoys waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iideystaan mashruucan muddo 3 bilood oo fayska koowaad waxaa sida inoo muuqato la sii doonaa si joogto ah ilaa 3 bilood qoys walba raashinka halka yaala oo saa u jeedaan hadda bariis saliid digir kusudka nafaqeynta caruurta oo lagu talagalay caruurta nafaqada safir moderate malnutrition ka waxa mar kula uu yeeray dhamaan hay'adaha iyo bulshadaba iyadoo la tixraacayo heerka nafaqa darrada ay ka jirta guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan dadka barakacayaasha loo yaqaan oo ku nool muxuu ahaa gobolka Puntland inay jiraan warbixinada waxaanu haynaa inay jiraan waxyaalo badan oo runtii u baahan in wax laga qabto heerka nafaqada aad u hooseyso marka laga yimaado haweenkan iyo caruurta maanta raashinka loo qaybiyay waxaa jira qoysas badan oo danyar iyo barakacayaal isugu jira oo u baahan in loo fidiyo gacan bini'aadantinimo Maxamed Saciid Somali Channel Garowe munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo ciida Carafo ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho sida faahinta warkaan oo inoogu soo dirayo Cabdulqaadir Cali Xuseen oo markale warbixinta Muqdisho inooga soo diray munaasabadani oo ahayd mid aad u ballaaran oo loogu dabaaldegayay ciida Carafo ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir qaar kamid ah gudoomiyaasha degmooyinka abwaana caanka gudaha dalka qaar kamid ah fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed xubno ka socday qurba joogta Soomaaliyeed iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid qayb kamid ah magaalada Muqdisho bilowgii munaasabada ayaa fanaaniinta Hiba Nuur iyo Maxamed Axmed Qoomaal waxa ay munaasabada ku soo bandhigeen heeso wadani oo ay uga qayb qaadanayeen dabaaldega ciida gudoomiyaha maamulka degmada Warta Nabadda Deeqa Cabdulqaadir Axmed ayaa waxa ay ka warbixisay ujeedka munaasabada qaaliga ah ee wadaniga ah ee dadkooda wajah kuwa kalena waxaan leenahay sida Qoomaal iyo Nuur iyo Sayid ee u yimaadeen
قفل بس عدو دمنا ملك موتك وقتي ولا هي بس اللي بعد ذلكين هو يصبرف كن كدين من الله أبكي كلو دي أصبر أنا وأمها دعينا دش وحي وباهنتها إنه سبقتكو إن وحي لقديكو وباهنتها دش قوسنا مالها قفنا مالها ضدك الصومالية دا إسكالي مقدش مسكحة الصومالية وهدينا ونقطة قبلة ودنا بدأ نكونها marka aan ku dadaalna sida caasimada aan dhisi lahayn dawladdeena federaalka aan u garab istaagi lahayn haddii dadka Soomaaliyeed hal qof ay noqdaan oo qolo loo joojiyo dawladnimadeena iyo wanaageena iyo sharafteena iyo karaamadeena way soo noqoneen gabagabadii munaasabada ayaa waxaa hadal kooban halkaasi ka jeediyay Cali Axmed Guure oo gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir xafladana lamada qaybood leh in ma ciidi farxadda weyneed dadka muslimiinta haddaanahay ciidaha u waaweyn aynu leenahay waa ciidul adxa iyo ciidul fitri waa laba ciidood oo ummadda dhan muslimiinta meel alla meelooda ka dhaxaysa waa suurtagal ciidan gaar ah inay leeyihiin ummadaha kala gaar ah laakiin ka muslimiin ahaan labada ciidood waaweyn baan leenahay marka inaynu damaashaadno inaynu farxano ayaan caawa iskugu nimid دماشات هي فرحة مدادالو أيام الجوغة وقت كسوح وحاو مناسبة وحالي هذا عرض حيث هذا لكل مقام له مقال ما يكفتئوا الجوغة هذا لكم مناسبة ولي عاو مناسبة حيث هاي فرحة إيه هاي هي دماشات هذا داري ما يوحالين هاي عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير صارت كان صارت كيسة خير وحان إلهي كبرنا سبحانه وتعالى إنه نوافجيه أنه إنتان كفيعا عبد القادر علي حسين كورنتو سومالي channel مقالة مقدشو maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan ayaa qalab isboorti waxa uu ka gudoomay dhalinyaro qurbo joog ah oo markaas reer Berbera ah sida faafinta warkan magaalada Berbera inooga soo diray Maxamed Cabdullaahi soo fariisto halka Somali channel uga soo warama gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa maanta ka gudoomay dhalinyaro qurbo joog oo reer Berbera qalab ciyaaraha ah gaar ahaan kubadda cagta qalabkaasi oo isugu jiray koobabka ciyaaraha la dhigo tartanada kubadda cagta iyo biladaha la gudoonsiyo ciyaartoyda kaalmaha hore ka gara ciyaaraha qalabkaasi oo ay soo direen laba ciyaaryahan oo kamid ahaan jiray ciyaartoydii hore ee gobolka Saaxil kuwaas oo kala ahaa Faysal Aadan Sahal iyo Maxamed Cabdillaahi Cawad Biliq labadan ciyaaryahan oo ku nool wadamada Yurub waxaanay u soo wakiisheen wareejinta qalabkaasi injineer Garaad oo isagu duqa degmada Berbera ku wareejiyay qalabkaas gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa isaguna u mahad celiyay labada ciyaaryahan ee qalabkaasi ugu soo deeqay ciyaartoyda gobolka Saaxil isagoo sheegay inay gaarsiin doonaan ama ay gelin doonaan halkii loogu talagalay lana dhigi doono ciyaartoyda kubadda cagta ciyaartay gobolka Saaxil marka hore waxa farxad weyn aniga ii ah oo runtii aniga dareenkayga aad u kicinaya oo halkii aan hore joogay hore uga sii kacaya oo aad ugu faraxsanahay sidaan dhihina ku aragtaan waxaanu nahay golo cusub oo dhiiri gelinaya ama u diyaar ah inay horumar ka sameeyaan horumar degdeg ah inay ka sameeyaan degmada Berbera anagoo gacanta ku haynay sportiska heer gobol iyo heer degmaba gacanta ku haynay oo ilaalinay jeclan inay horumar ka gaaraan niyadna aanu nagaga imanin ee aanu jecelnahay abiteedkaygu intii hore ka sii bato waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinta yar ee da'da yar ee soo xasuustay inay dadkoodii ay ka tageen ay dhiirigelin u sameeyaan waxaan jecelahay inaan laba kelmood dardaaran oo halkan chance uga faa'iideysto mid waxaan uga faa'iideysanayaa dhalinyarada sportska midna waxaan uga faa'iideysanayaa maamulka heer gobol ilaa heer wasaaradeed ee sportska Jamhuuriyadda Soomaaliland mid dhalinyartaan leeyahay waxaan aad ula yaabanahay inankii 18 jira oo imika kubadda sida loo laada bartay oo imika xiddiga hayo imika soo baxay ayaa sanadkii dambe wax la oranayaa waa retire war goorma retire noqotay mitii retire de waa waxyaalaha dib u celinaya gobolkan ee la doonayo inaan dhalinyarada maskaxda aan laga dilin mitii retire in xiddigihii baatiin ilaa 40 dheeraad ka gaarsiina gobolka oo safanaysa sida Maxamed
xildhibaan maxamed oo kale injineer maxamuud oo kale waa rag kala doonaya gobolka inay dhalinta horka caanaanay hawlgab noqoninba iyagoo dhowr iyo soddon ay ku leeyahay waxaan nahay retire ma tiidin dee dhowr iyo 20 dhowr iyo 10 waan dhiiri gelinaa weliba waxaan ballan qaadaynaa zero-eeda inuu zero b-da ka horreysiino oo zero b-da sare u soo kicino si xidig uga soo baxaan insha Allah tacaala waxaan kaloo kan uga faa'iideysanayaa jaaniskan waana cidna amaahineen anigu aan jecelahay xaqiiqada dhabta inaan sheego waxaan ka sheegayaa wasaaradda wasiirka heer wasaaradeed waxaan leeyahay agaasimaha guud ee cusub waa nin dhalinyaro ah waa nin aad hamigiisu u fiican yahay waa nin jecel inuu wax qabto waxaan leeyahay qorshahaaga ku darso wasaaradda heer gobol waxay u baahan tahay tayo intan ka badan qaabkan imika u taalo qaab ka duwan tayay u baahan tahay aqoon badan bay u baahan tahay dad himilo leh oo wax sii qaban kara u baahan tahay waxaan leenahay hanugu eegina heerkii hore ee taagneed wasaaradda heer gobol waa in heer gobol la tayeeyaa anaguna waxaan diyaar u nahay naf iyo maal hadday kuba tahay hadday koob tahay iyo haddii adduun tahayba in isla garab taagno waan cid kale aan ku halayn gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Awdalna waxa uu ka qayb galay xaflad qalin jabin aheyd oo ka dhacday dugsiga Waabari ee magaaladaasi Boorame Cabdifataax Axmed ayaa warbixinta magaalada Boorame ka soo diray munaasabadan qalin jabinta oo ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland siyaasiyiin aqoon-yahano iyo gudoonka waxbarashada ee gobolka Awdal waxa ku qalin jabinaya 160 arday oo bartay luqadda Ingiriisiga iyo kombiyuutarka kuwaas oo ka baxay macadka barashada kombiyuutarka iyo luqadaha ee Waabari ee magaalada Boorama munaasabadan ugu horeen waxa ka hadlay maamulaha macadkan Mudane Cabdilaahi Axmed Cumar waxa uu ka sheekeeyay ardaydan maanta qalin jabinaysa iyo waxyaabihii ay barteen waxaa la aasaasay afartii bishii sagaalaad 2007 waqtigaas oo lagu aasaasay number aad u kooban marxalado kala duwan oo soo maray kadib markii hawlwadeennadu ay dadaal badan sameeyeen dugsigu uu tadawuray isna horumar ayuu sameeyay wuxuu markaasi lagu soo daray aaladda kombiyuutarka ayaa lagu soo biiriyay waqti dhexe kadib dugsigu uu sii ballaadhay waxaa lagu soo daray haddana dugsiga sare ee secondary-ga oo sanadkan ardaydii u horeysay ay bixi doonaan insha Allah waxa kale oo dugsiga uu leeyahay marka la yiraahdo waxbarashada formalka dugsiga hoose dhexe iyo sare uu isku xidhan yahay luqadda Ingiriiska xirfadda kombiyuutarka waxa kale oo dugsigu bixiyaa waxbarashada dadka waaweyn oo iyadna runtii baahi loo baahnaa oo meesha ka maqnayda hadda wax ka dhigataay marka la isku soo wada geeyo waa 100 arday oo iskugu jira dufcadaha kala duwan ama qaybaha kala duwan oo dugsigu leeyahay runtii guud ahaan marka la eego dufcadda lixaad lagu daro ardaydii ilaa hadda ka qalin jabisay 920 arday weey inta dhamaysatay ee qalin jabisay oo taa maanta ay u dambayso sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay gudoonka waxbarashada ee gobolka Awdal agaasimaha cusbitaalka Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aye mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha Eelo iyo Camuud ee magaalada Boorama ku yaala iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka wadani Mudane Axmed Muumin Seed ayaa waxay amaan u jeediyeen maamulka iyo macallimiinta macadka barashada luqadaha iyo kombiyuutarka ee Waabari ee magaalada Boorama waxayna ku baraarujiyeen inay sii wadaan howlaha horumarka ee dhanka waxbarashada oo ay gobolkan ka wadaan mid ka mid ah ardaydii maanta ka qalin jabisay macadka barashada luqadaha iyo kombiyuutarka ee Waabari ayaa iyaduna madashan waxa ay ku soo bandhigtay waxyaabihii ay ka baratay macadkan. Today is a great day for me and it's a great day for us. Really, I can't say in words what I'm feeling today. Before I start my speech, I would like to thank my dear teachers. Really, during my learning of English, they give us a lot of encouragement and they sacrifice us their time. Really, thank you. Doesn't make any sense. But by heart, I would like to say my teachers, thank you. gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmadan Boorama Mudane Maxamed Maxamed Faarax Dheereste oo madashan isaguna ka hadlay ayaa waxa uu dardaaran u jeediyay ardayda maanta ka qalin jabisay macadka barashada luqadaha iyo kombiyuutarka ee Waabari maskaxda isu geeyno baan wax badan bedeli karnaa ayaan qabnaa kulli toole waxaan ilaahay isku mid Waabari han noolaado asii socdaan leeyahay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland Mudane Maxamed Jaamac Abgaal oo gabagabadii munaasabadan qalin jabinta ka hadlay ayaa waxa uu hadalo dardaaran u badan u jeediyay ardayda maanta qalin jabisay wuxuuna ku amaanay maamulka iyo macallimiinta macadkan horumarka dhanka waxbarashada ay gobolkan ku soo kordhiyeen waxa yaab leh aabood ba ka soo saaray jaamacad la hertaa jaamacad ba ka soo saaray ma shaqeeyaa abood
inankii loo barayay wax inuu arrinkaa wax ka bedelo haddii uu tahriibu jagada hadhay iga soo dabadira yidhaahdo war maynu aqbali karaynaa dee talaa laynaga rabaa waxaa laynaga rabaa ma waxbarashada inay wax ka dhiban yihiin ma waalidkeenay wax ka maxay dhibaatada heerkan inuu kalifaysaa haddii aynaan arrinkaa xal u helin iskuulka aan iminka bilowna ka soo baxayno ilaa jaamacadda waalidka aynu ku cadibayno micno badan inoo samayn mayso waxa khasaaraha ina kama imanayo waa inaynu lab su-aasha isku weydiino hambalyo intii wax soo baratay hambalyo intii wax soo bartay hambalyo waalidiinta hambalyo mas-uuliyiinta aad iyo aad baan idin hambalyo waxaana gabagabadii xafladan shahaadooyin lagu guddoonsiiyey 160 arday ee wiilasha iyo gabdhaha isugu jira kuwaasoo bartay luuqadda ingiriisiga iyo kombiyuutarka kana baxay macadkan Waaberi si kastaba ha ahaatee macadka Waaberi oo faracyo kala duwan magaaladan Boorama ku leh ayaa waxa uu ka mid yahay macadyada dhanka horumarka waxbarashada ka sameeyay gudaha gobolka Nowdal waxaana ka soo aflaxay arday aad u tiro badan kuwaasoo xilligan ku shaqaysta waxyaabihii ay macadkan ka barteen Cabdi Fataax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama waxaa magaalada Nairobi dalkan Kenya lagu soo gabagabay seminar dhalinyaro loogu barayay luqadda Carabiga iyo kutubta diiniga ah sida faafinta warkaan oo inoogu hayo Faisal Xasiir Maxamed xafladan oo ahayd mid isku jirtay laba qaybood oo kala ahaa dhalinyaro loo soo gabagabeynayay seminar lagu barayay luqadda Carabiga ee qaar ka mid ah kutubta diiniga ah iyo soo dhaweynta Ciidul Adha ayaa waxaa ka soo qayb galay culimooyin dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya Aamir Ahmed Muyo oo ka mid ahaa dadkii soo agaasimay xafladda ayaa Somali Channel ugu warbixiyay waxa ay ku saabsan tahay munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برنامجك مانتا أو دعي وبرنامج أو ما أردت كسابسن حفلة داسي وحيسكو جرت لبا حفلة حفلة عيدة هي حفلة أو دورة دماتي أو ما أردتي دورة لغو قبتي مساجدك الهداية أو أرضي بدن كتخرجت إدميين هي حفلة لغو دقي دورadaas waxay ahayd dowratu luqal carabiya iyo kutubta diiniga ah dooradaasi waxay socotay sanad iyo bar ardayda waxaa la guddoonsiiyey shahaadooyin oo barnaamijkaas macnaha ku saabsan oo ma aragtay masjidka al-hidaaya iyo iska kaashadeen iyo guddiga iyo maamulka dowradaasi xafladaas marka waxaa soo qaban qaabiyey dhalinyaro iyo ma aragtay culimo ma aragtay oo jecel ma aragtay in barnaamijka lagu horumariyo ardayda xafladda marka waxa iskugu jireen riwaayado iyo waxa lagu soo bandhigay muxaadaro iyo nashiidooyin iyo maxaan ku iraahdaayay iyo ma aragtay gabay Soomaali iyo ma aragtay barnaamij iska madadaalo ah oo loogu talagalay ciida iyo farxadeeda marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu amaan iyo nabadgeliyo iyo wanaag ciideeda kale noogu soo celiyo sidaas oo kale waxaan jecelnahay xaflad saas oo kale ah يديه إن قبنا وضدك مارك أنت آدي لهاي ميلا معصية ميلا تمشى يو ماركتي ميلا عن ماركتي أو شيطانك معناها كجيتو أنت أساس ميلا هاي نوحاج على سنة إن حفلة عيدة لوقبته وبرنامج الديني وعي كتسينايو درين وقفك ماركت مركي روايد أو فيريو waxa waaqica iyo oo jiro iyo dhalinyarada haysto in oo maaragtay loo soo bandhigo iyo daawada iyo xalka sida loo daaweyn lahaa sidaas oo kale anaashiid oo maaragtay iska madadaalo ah gabay marka waxaan rajaynaynaa inaad maaragtay ka faa'iideysateen insha Allah ta'ala waxaan u mahad celinayaa dhammaan walaalaha culimada gaar ahaan maaragtay kanaalkan Somali Channel iyo maaragtay saaxiibkay iyo oo maaragtay darba injineer darba dhammaan macnaha waan mahad celinayaa jazaakumullahu khayran kullu aam wa antum bikhair ciid mubaarak wabillahi tawfiiq Sheekh Maxamuud Abu Shayba oo kamid ah culimada Soomaaliyeed oo ku nool dalka Kenya waa isagana xafladda ka hadlay ayaa dhalinyarada ku baraarujiyay barashada luqadda Carabiga iyo kutubta diiniga ah marka waxa la rabaa dhalinyaradiina luqadda Carabiga waa luqadeeni in la barto si diinta loo fahmo khayr la siiyo sida caamir rag kale oo maartay garab siinayay inaad luqadii maartay fahamtaan oo diintii fahamtaan oo faafisaan luqadu waxa weeye waa luqadu waa ilbaxnimada dadka ka tahay asal taariikhda muslimiinta Carabi ku qoran tahay dadka Ingiriis aan ku aqrinaya wiil Soomaaliya aan dawlad isla raacno waxaan arkay buu aqrinaya tarjuman ummahatul muuminiin yaa tarjumay waxa laga inuu tarjumidaan diinta ba aqoon oo musashir ku waalo maxaa tarjumaad ka rabtaa adiga Carabi baro oo asalkiiba akhriba
aninkaanu aad buu isoo fiirinayaa ninka xidhiiriyaha kol waqti ay ga dhammaaday ciid wanaagsan kullu caamin wa antum bikhayr khayr baan ii rajaynay dhallinyaraatiin noloshu ay inii cusub tahay allah inii hagaaji inta soo socota taqriiban waxay socotay dowradan sanad iyo bar dad badan ayaa ka soo qayb galay oo ka kala yimid Nairobi iyo xaafadaheeda meelo ka mid ah waxayna dowrada waxay dhici jirtay khamiistii iyo jumcadii galabtii bacda al-casr oo labada biri khamiis iyo jumca dad badan ayaa ka faa'iideystay sheekheena al-faadil jazaahullahu khayran ustaad Amir wuu noo faa'iiday wax badan waxaa kaloo fursad inoo siiyay markazul hidaaya qaybta sare masaajidka sheekheena al-faadil Mahmoud Maxamed Shibli dowrada waxay ahayd dowro kutubo carabi ah oo laga bilaabo safka koobaad ilaa 8 galaas koow laga bilaabo ilaa 8 waxaa kaloo sheekhu ku dhex daray kitaabadaas oo noo faa'iiday manduumo la yiraahdo laamiyatu al-ward wa manduumati abi isxaaq al-biri oo manduumooyin aad u faa'iido badan ah wa manduumatu naajixiin kitaab la yiraahdo oo iska leeyahay doctor Aid al-Qarni dowradan waxay u dhici jirtay sida tan arday badan ayaa ka soo qayb gashay ardadana hal meel ay ma aragtay imtixaanka kuwada ay fadhiisan jireen casharka ku qaadan jireen dowra aad qiimo u leh ayaa ahayd kutub kasta markii la dhameeyo imtixaan ayuu qaadi jiray sheekha jazaahullahu khayran aad ayuu u mahadsan yahay wajazaakumullahu khayran ciidukum saciid wa kullu caamin wa antum bikhayr wajazaakumullahu khayral jazaa Faisal Aseer Somali Channel Nairobi kun lagu muujinaya qiimaha maalmaha ciidaha islaamka oo lagu soo aadiyay munaasabada Ciidul Adha ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso iyadoo kulankaasina ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada ee PSA warbixintan waxa ay nooga soo diray Maxamed Deeq Cabdallah maanta si wanaagsan u ciida maanta si wanaagsan kulankan ballaaran oo lagu qabtay xarunta ururka PSA ee ku taala Boosaaso ayaa ujeedka ugu weyn waxay ahayd in dhalinyarada iyo bulshada loogu faahfaahiyo qiimaha ay islaamka u leedahay munaasabadaha ciidaha waxaana kulankan si gaar ah loogu soo dhaweynayay munaasabada Ciidul Adha oo shacabka islaamka dunida daafaheeda ay u dabaaldegeen waxaana kulanka ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay xiriiryaha ururka PSA Cabdixakiin Axmed Maxamed xafladan gaarka ah ee sanad kasta ay PSA agaasinto ujeedooyinkeeda waxa kamid ah in la weyneeyo maalmaha ciidka ciidul fidriga iyo ciidul adha iyo maalmaha kale ee dawlad ahaan iyo ummad ahaan in ku weyn dal ahaan iyo islaam ahaan labadaba labo in la wadaago farxadda goob la isugu wada yimaado aaraa afkaar aqoon cilmi madadaalo majaajilo iyo suugaan kulluba Ustaad Sheekh Cali oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho farceeda Boosaaso iyo jaamacadda Boosaaso ayaa isaguna ducadiisa sharaxaad kooban ka bixiyay munaasabada Ciidul Adha ciida in la weyneeyo waa hadaf islaamku leeyahay ilaahay oo quraan ku sheegay maalmaha kan walitukabbirullaha ala ma hadaakum mar alla markaan tukanno maalmahan waxaynu qaadaynay kalimaad tawxiid iyo takbiir iyo tahliil isugu jira oo ah kuwa ilaahay xaqiisa loogu jecel yahay waa maalmo qaaliya waa maalmo qiimo badan waa maalmo ciideed kow waa maalmo farxadeed oo qofka muslimkii ay tahay inuu farxo laba waa maalmo isxidhiidhineed oo ay tahay qof waliba qaraabadiisa inuu xidhiidhiyo saddex waa maalmo musaacado iyo iskaalmayn oo ay tahay qof kasta oo muslim ah wax tari karo gacanta wax ka bixin kara ciddii faqiira iyo ciddii ahlillah iyo ciddii darisla iyo cidduu garanayo wixii uu ku dhaamo inuu tawsiic u sameeyo kulankan qiimaha leh ee lagu weyneynayay munaasabada ciidda ayaa waxaa lagu soo bandhigay suugaan iyo barnaamijyo su'aalo weydiina kuwaas oo qaarkood lahaa xiise gaar ah marka loo eego abaalmarinada la helayay gudoomiyaha ururka PSA Cabdifataax Sugulle ayaa gabagabadii kulanka ka hadlay wuxuuna sharaxaad ka bixiyay xarun si lacag la'aan wax looga barto oo hoos timaada ururka PSA wuxuuna sheegay in faa'iido ay u leedahay in bulshada uga faa'iideyso dhalaankooda in xaruntaasi ay wax ka bartaan waxyaalaha aan rabo inaan u maandaqo waxa kamid ah iskuulka Carbis oo ah iskuulada ay PSA gacanta ku hayso طبعا Carbis lacag la'aan waaye برامبركي يعني لمودن إن عن حيثين ربنا عربيس قف كستور دكتور العقل جم قاعدة عربيس وسكول العقل أنا ضدك لجو بروح حرفة كل الدول سنة كان وحكب حياة كوحدي صدحات سنة كستور قبطاء إلى صدح بقول يكتن قف أو حرفة كل الدول سيو يو تبرك كل الدول ضدك هل كان ما أنت برامج كسر من دقيقة سنة وحي هاي ضدك وحكفة سنة محمد عبد الله
TV-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso. mid ka mid ah ururada dhalinyarada ee gobolka Sanaag ayaa munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo xilalka ay u kala wareejinayeen laba gudoomiye waxay ku qabteen magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo sida faafinta warkaan oo magaalada Ceerigaabo inooga soo diray Yusuf Cabdi Xasan oo halka Somali Channel warbixinta uga soo diray ururweynaha dhalinyarada wadaniga ee dalka oo xaflada xilka kula kala wareegayaan gudoomiyaha cusub Kaysa Cabdi Cali iyo gudoomiyihii hore ururka dalka Axmed Yuusuf Taraafiko ayaa maanta ka dhacday magaalada Ceerigaabo waxaana munaasabadan ay xilka kula kala wareegayaan labada gudoomiye lagu qabtay hoolka shirarka ee ururka dalka xafladan ay goobjoog ka ahaayeen dhammaan xubnaha ururka dalka iyo marti sharaf kale waxayna ahayd munaasabadan mid aad loo soo agaasimay isla markaana lagu gorfeynayay waxqabadkii ururka iyo ujeedooyinkii loo aasaasay ugu horeyntiina waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyihii hore ururka dalka Axmed Yuusuf Taraafiko isla markaana uga mahadnaqay xubnaha ururka sidii wanaagsaneed ay ula shaqeeyeen muddadii xilka hayay kuna booriyay inay ula shaqeeyaan gudoomiyaha cusub siday ula shaqeeyeen dhalinyaradu waxay ka mid dhalisay fikirkii ay markaas u keentay waxay sameysay magacii ururka waxay sameysay xubnihii ahaa qaybihii kala duwan ee ururka waxay sameysay markaa golayaashii ururka ku shaqeynayay iyo sharciga kala hagayay markaa xubnaha kadib intaa markii la soo gaaray 2013 bishii afraad waxaa loo soo gudbay inuu markaa hadda ku dhaqaaqo waxqabadkiisii koowaad oo ahaa inuu markaa hirgeliyo dugsi loogu magac daray ururka oo la yiraahdo dugsiga dalkaab kaasoo shaqeeya hadeer oo ardaydiisina ay si toos u joogto magaalada Ceerigaabo hawlgalayna in badanna shaqeeya taa markaan ka soo gudubna waxaan sameynay inaan markaa u qabanno doorasho caadi ah oo u dhacday ururka dalkaab taas oo dhacday sida doorashooyinka dawladaha caamka lagu yaqaano iyadoo ay ahayd hal cod iyo hal qof laguna kala baxay ay hadeerta guddidan maanta xilka wareejinaysan halka laga guuleystay ay kuna soo bixeen guddida cusub ee maanta qabanaysa xilka ururka dalkaab ee ururweynaha dalkaab dhanka kale waxaa isna goobtan hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha cusub ee ururka dalkaab Kaysa Cabdi Cali oo xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ugana mahadnaqay sidii wanaagsaneed uu shaqada u gutay muddadii xilka hayay ballan qaaday inuu xilkan u gudan doono daacadnimo kana dheeraan doono wax kasta ka hor imanaya shuruucda ururka awalan waxaan u mahad celinayaa guddidii fulintii hore ee uu hormuud ka yahay Mr. Axmed Yuusuf Cabdulle oo runtii ururka halka wada taagan soo gaarsiiyay iyo dhammaan xubnihii kala qayb qaatay waxqabadkan runtii ururku hadeer laga soo waramayay aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ilaa miisaanka xasanaadka ay ku daro kulleed waxa la yiri xil qaadiyo hawsha runtii aanu u kacnay in ilaahay nala garab galo idinkuna aad nala shaqaysaan waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan runtiina nala shaqaysan soo dhaweynayna sidoo kale waxaa goobtan hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah waxgaradka culimada odayaasha iyo aqoon-yahanka ka soo qayb galay munaasabadan uguna hambalyeeyay ururka sidii wanaagsaneed ay xilka ula kala wareegeen soona dhaweeyay shaqada ballaaran ay u hayaan ummadda ballanna qaaday inay la shaqayn doonaan ururka dalkaab wuxuu soo kordhiyay wax badan oo aanu in badan ku hamiyeynay inaanu qabanno dad dhalinyaraaba u kacay maskaxdoodii bay tuujiyeen way ku dhaqaaqeen way ku guulaysteen qof allaale iyo qofkii loo sheego oo niyadiisu markaa ay fiican tahay aad buu ugu farxay ururkan waxqabadkoodii iyo horumarinta ay sameeyeen sanadkii ay jireenna oo wax muuqda oo weliba si dukumenti ah ay u hayaan ee aan ahayn wax laga sheekaynayo halkaas dhammaanta iyo ururkaas inaanu hiil iyo hooba la garab istaagno baanu diyaar u nahay community la sameeyaa way jiraan laakiin meel khaldan laga bilaabay exactly waxaad ka bilowdeen base-kii wax waliba waxa leeyahay asaaskii baad ku bilowdeen waanuna idinku garabtaagna ilaahayna waxaan leenahay garabkiina ugu dambeyntii waxaa jawi farxad leh xilka kula kala wareegay gudoomiyihii hore ururka dalkaab Axmed Yuusuf Taraafiko iyo gudoomiyaha cusub ee Kaysa Cabdi Cali waxaana halkaas shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay gudoomiyihii hore ururka dalkaab Axmed Yuusuf Taraafiko Yusuf Cabdi Xasan Cadde TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada Ceerigaabo qaar ka mid ah jaaliyadaha kasoo jeeda degmada Wedwed ee ku nool dibadaha ayaa waxay deeq lacag soo gaarsiiyeen masjid deegaankaasi laga dhisayo sida faafinta warkaan oo inoogu soo diray dhaqtar halka Somali Channel uga soo warama
waxaa deeq lacageed la soo gaarsiiyey dhismaha mise jaamaca degmada Woodward oo dhowaanta laga baahiyey telefishinkan caalamiga ee Somali Channel. dhismaha mise jaamaca degmada Woodward ayaa dhawaan la dumiyey waxaana la doonayaa imika in laga dhigo masaajid laba dabaqa. deeqdan lacageed waxaa ku deeqay jaaliyada degmada Woodward ee ku dhaqan waddanka dibadiisa waxaana deeqdan lacageed loo soo wakiishay Ismaaciil Maxamed Jaamac oo ka mid ah waxgaradka degmada Woodward isla markaana deeqdan lacageed ka wareejiyay guddiga gacanta ku haysta dhismaha masaajidka degmada Woodward. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam amma bacda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan waxaan ka soo gudbinayaa lacag tiradeedu dhan tahay $3,200 oo ay soo wakiisheen walaalahayga islaamka ee degmada reer Woodward ka jooga qurbo joogan Denmark. dadkaas oo ay magacyadoodu kala yihiin Zeynab Yuusuf Abakor $1, Canab Yuusuf Abakor $1, Faadimo Cabdi Hiirad iyo Cabdirasaaq Nuur Axmed $700, Cabdilaahi Nuur Axmed $350, Cali Cismaan Yuusuf Cali Madoowe $150. lacagta oo isku dhan $3,200 oo aan wakiil uga ahay inaan ugu wareejo guddida masaajidka dhisaysa iyo culimada masaajidka degmada Woodward dhisaysa. waxaan iga guddoonta falyatafadal $3,200. waxaanu leenahay kuwa lacagta soo dhiibtay iyo kuwa kale ee iminka doonaya inay soo dhiibtaanba iyo kuwii hore u dhiibtayba waxaanu ilaahay uga baryaynaa muraadadooda san oo aan macsi lahayn oo mid adduunyo ah oo mid aakhira ah. meesha tanana waxa weeye masaajidna Soomaalidu hore waxay jirtay masaajidna dhagax dhigo madalna markhaati dhigo. marka masaajidka wixii aad gashata waa wax ku oolaya adduunka waxba yaadan ka helin aakhirase oo ka badan adduunka ayaad ka helaysaa. ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inaad waalidiintiina alla ugu naxariisto idinka alla idinku naxariisto muraadadiina sana aad macsida lahayna ilaahay midigta idinka saaro. oo iyadana aanan marnaba ilaawi karin dadyoogii hore iyaguna soo gaarsiiyay intii aanu baaqan gudbinay lacagaha soo diray sida gabadh magaceeda tiri hallay qariyo oo iyaduna $500 noo soo dirtay. gabadhana waxaanu weydiinaynaa ilaahay khayr iyo barwaaqo ayaanu aqri adduunba u weydiin doonaa insha Allah. iyo gabdho kale oo iyaguna insha Allah taala sidoo kale iyaguna soo diray iyo kuwa noo ballan qaaday oo yiri waanu soo diraynaa intaba waanu inta Allah insha Allah taala waanu ugu ducaynaynaa. waxaanu ku leenahay jasaakumullahu khayral jazaa. ilaahay subhanahu wa taala nimcooyinkiisa albaabada khayrka Allah idin furo. Allah subhanahu wa taala idin ka raalin. ugu dambeyntii culimada iyo waxgaradka degmada Woodward waxay fariin guud u dirayaan guud ahaan walaalaha islaamka meel kasta oo ay joogaan inay ka soo qayb galaan dhamaystirka jaamaca degmada Woodward oo la doonayo in laga dhigo masaajid laba dabaqa imikana dhismihiisu uu taagan yahay mitreenkii. waxaana cid tamarrucad kartaa kala xiriiri karaan lambarada idinka muuqda shaashada. وعلي عثمان سبعال دكتور ورقة تلفيش كعلمي إسماعيل channel دقمة ورود قبل كعين. hay-ad gargaar oo laga leeyahay dalkaasi Turkiga ayaa deeq hilib ah gaarsiisay dad tabaaleysan oo muslimiin ah oo ku nool tuulada la yiraahdo Kibuus ee deegaanka Garsiyaani ee gobolka Tanarifa iyadoo markaasi kaashanaysay hay-ad kale oo gargaar ah oo halkaasi ka howlgasha. sida faahinta warkaan oo inoogu soo diray Axmed Isaaq Cabdi Axmed Allaqaaye. iyadoo labadii maalmood ee aynu ka soo gudubnay lagu gudo jiray gudashada Ciidul Adha iyo hay'adaha Islaamiga ee ka howlgala dalkani Kenya waxa ay ku howlanaayeen sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka muslimiinta ee danyarta misna aanana waxba haysan ee ku nool qaar ka mid ah gobolada waddankani Kenya. hay-adda Fernal oo ka mid ah hay'adaha Islaamiga ee laga leeyahay dalka Turkiga had iyo jeerna u taagan u gargaaridda ummadda Islaamka kuwooda aanana waxba haysan ayaa waxa ay deeq hilba gaarsiisay tuulada Kibuus ee deegaanka Garsiyaani ee gobolka Tanarifa iyadoo kaashanaysa hay-adda gargaarka nabadda iyo horumarinta ee marka magaceeda la soo gaabi loo yaqaano Kabdo. deeqdan ayaa waxa ka faa'iideystay dad tiradoodu gaaraysa 300 ruux oo ku nool tuulada Kibuus iyo nawaaxigeeda. halkaas oo ay ku nool yihiin dad badan oo islaam ah misana aanan waxba haysanin isla markaana u baahan in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo. mawlid sheekh nuuri oo ah duqa tuulada Hadiyaada Kibuus oo la hadlay TV-ga caalamiga Somali Channel ayaa ugu horeyn u mahadceliyay hay'adda Kabdo oo soo gaarsiisay deeqdan sheegayna in ciidii hore ay soo gaarsiiyeen deeq caynkan oo kala mahadsantiin anagu mahadcelinayna hay'adda Kabdo oo gargaar noogu deeqday xoolaha inaan ku ciidaysano ciidul adha waa mahadsan yihiin iyadoo ciidii ka horeysay ay arin oo keeneen
haddana maanta loo ayta ciidda dambe hadduu ilaahay na gaarsiiyo maxaan malaynaa inaan sidaas si ka fiican aan uga faa'iidaysan doono. ugu dambeyntii ayaa waxaa isna la hadlay TV-ga Somali Channel Maxamed Nuur Xasan Saali oo ah gudoomiyaha hay'adda gargaarka nabadda iyo horumarinta Kabdho isagoo ka warbixiyay howlaha u qabsoomay una mahadceliyay TV-ga caalamiga Somali Channel. ciid Adha ciid Adha yaan ka howlgalnay laba countiga Gaarisa iyo countiga Tana River runtii taqaariiran u gudbinay walaalahayna muxsiniinta noo imaadeen laba hay-ad na soo qaabishay hay-adda waxaan ku hagaajinay Dadaab saddex deexara Ifo iyo Xagardheera iyo Dhagaxli run ahaantii aniga waxaan soo aaday dhankan Tana Riverna waxaan ka howlgalnay Garseeni tuulada la yiraahdo Kibuso run ahaantii الضاحية maanta lagu qalay meesha taqriiban 12 neef oo loo ah meesha lagu qalay run ahaantii yani الضاحي kale ma aha barnaamijyo kale yani waxtar iyo maaragtay horumar yaan soo tusnay sidii maaragtay dadka yani loo gargaar lahaa xagga maaragtay sanitationka biyaha yani runtii meesha marka u kacnay dadkii waxaan la kulnay ayagoo maaragtay caagag wato oo webiga kasoo dhaansanaya biyaha 20 la ayagoo wata yaan tusnay dadkii hay'adda ka socday ilaa meesha ay kasoo darsanayeen biyaha webigaan isla aadnay waxaana ballan qaadeen in maaragtay motor biyo yani webiga kasoo bixi ilaa tuuladkeen ay ballan qaadeen labaadna waxay ballan qaadeen dadka in madaaris loo dhiso yani 5 class oo madaaris ay dhisi doonaan idaacadda Somali Channel oo maaragtay yani tixgelinaysa waxqabadka Soomaaliyeed yani qaab bay u soo muuqan lahayd oo u mahadcelinaya Axmed Isaaq Cabdi Axmed Laqaaye telefishinka caalamiga Somali Channel deegaanka Garseeni ee gobolka Tana River. guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayna warkeena TV-ga Somali Channel studio magaalada Nairobi ayuu idinkaga imaanayay aniguna waa Saacadiye Cabdiraxmaan Cabdulla Garbeetan iyo kulan dambe. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.